Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. daawadayaal waa Boolmoog Media aad uga barateen halkan inuu idin kasoo gudbiyo wararka iyo warbixinada ka dhaca dunida kuwooda ugu heesaha weyn. waa maalinimo Arbaco ah 10kii bishii 6aad 2020 waxaanu warkeena ku bilaabeynaa madaxweynihii hore ee dowladda ku-meel gaarka ee dalka Soomaaliya Shariif Sheekh Xasan ayaa waxa uu u diray fariin qoraal ah ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed isaga oo yiri waxaan ka codsanaynaa in aad kala baxdid faraha arrimaha Soomaaliya isaga oo ku eedeeyay inuu Abiy Ahmed uu gacanta kula jiro arrimaha Soomaaliya isagoo waliba si gaar ah u taabtay ismaamulka Somaliland oo uu yiri waxa uu wadaa inuu aqoonsado amaba uu ka shaqeynayaa sidii ay Soomaaliya inteeda kale uga go'i lahayd. waxaanu kaloo idiin haynaa daawadayaal madaxweynihii hore ee dowladda federaalka Soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa shir jaraa'id oo ay maantay ku qabteen xarunta madasha xisbiyada qaran waxa uu yiri ma muuqato saansaan doorasho inay soo socoto waxaase meesha inooga muuqata ayuu yiri inay dowladda tanu rabto waqti kororsi amaba ay sii jiitanto arrinteeda. taasna waxaa inoo daliil ah ayuu yiri iyadoo ay ka harsan yihiin wax ka yar 6 bilood ayaan waxaa weli muuqan ayuu yiri amaba ay dowladda soo bandhigin qorshayaashii loogu talagalay ama doorashooyinka lagu qaban lahaa 2021 waxa uu yiri tani micnaheedu waxa weeyaan inaanu dalka doorasho diyaar u ahayn taasna waan ka digaynaa in ay muddo kororsi la sameeyo. xasan sheekh maxamuud oo isaga xilligii uu hayay xilka sameeyay muddo kororsi ayaa waxaad moodaa inuu dowladda haatan jirta ku eedeynayo inay wadato muddo kororsi isagoo iska indhatiraya tuu isagu soo sameeyay. haddaba daawadayaal waxaanu idiin haynaa wararkeena Afrika ee dalka Nigeria ururka argagixisada ee Boko Haram ayaa waxa uu weeraro ku qaaday gobolka Maiduguri ee dalkaasi Nigeria galabnimadii Salaasada isaga oo la sheegayo in uu ku dilay tuulada Faduma Kolorama la dhaho ee ka tirsan gobolka waqooyi bari halkaasoo la sheegay in ay ku dileen 69 qof kadib markii uu nin goobjooga ahaa oo halkaasi saxaafadda u sheegay inay dadka ku amriyeen inay dibadda u soo baxaan kadibna ay tooganayeen isaga oo yiri waxa ay ku hubaysnaayeen baabuur gaashaaman iyo mootooyin waxaana ay soo galeen ayuu yiri galabnimadii xilli ay qorraxdu sii dhaceysay iyaga oo haystay ilaa iyo subaxnimadii Arbacada. gudoomiyaha gobolkaasi lagu magacaabo Babaguna Suluma oo meel 87 kiiloomitir u jirta kasoo kicitimay ayaa waxa uu soo gaaray galabnimadii Arbacada halkaas iyadii oo ay Boko Haram ka baxeen. arrintan ayaa waxa ay keentay ayaa la yiri markay ay weerarka qaadeen waxay jireen dhammaan isgaarsiintii gobolkaasi waqooyi galbeed. haddaba tan iyo intii ay weerarada bilaabeen Boko Haram 2009 waxa ay Nigeria ku dileen dad ka badan 30,000 iyaga oo ku barakiciyay in ka dhow 3 milyan. wasiirka gaashaandhigga ee dalka Turkiga ayaa isagana waxa uu sheegay in ay sii wadi doonaan taageerada ay la dhinac taagan yihiin dowladda la aqoonsan yahay ee Liibiya isagoo yiri General Haftar waxa uu lumiyay dhammaan wixii uu taageero haystay. wasiirka gaashaandhigga ee dalka Turkiga Huruza Akar ayaa waxa uu mar uu la hadlayay saxaafadda gudaha ee dalkaasi waxa uu yiri waxaanu kaloo ku jabinay awoodii dowladaha Masar iyo Imaaraadka oo ka dhinac dagaalamayay ayuu yiri. waxaa daba daawadayaal madaxweynaha dalkaasi Turkiga iyo madaxweynaha dalkaasi Ruushka Vladimir Putin waxa ay khadka taleefanka maanta Arbaca ku wada hadleen iyaga oo isla qaadaa dhigay arrimaha dalkaasi ka socda Liibiya iyo kuwa ka socda Syria ee Idlib sidii looga gaari lahaa guulo wax ku ool ah. waxaan kaloo idiin haynaa dalka Turkiga oo ku soo biiraya wadamada safka hore kaga jira oo taageeraha qalab amaba caafimaad ee u diraya wadamada kale ee adduunka ayaa waxa uu u diray shixnad isugu jirta dawo iyo qalab dalka Serbia. Turkiga ayaa waxaad moodaa in uu noqonayo dalka labaad marka loo eego Shiinaha oo ah kan koowaad oo dunida u dhoofinayay tan iyo intii uu COVID-19 dilaacay. haddaba daawadayaal waa Boolmoog Media fadlan channelka haddaa ku cusub tahay subscribe saar tan iyo kulanti dambe oo